بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jeclahay maanta inaan ka hadlo ihdina siraada almustaqiim wadada toosan ee ilaahay raallida ka yahay ayaan jeclaa maanta inaan ka hadlo haddii ilaahay yidhaahdo insha allah mustaqbalka waxaan ka hadli doonaa haddii ilaahay noo ogolaado subxaana watacaala mu'min ma garanaysaa mu'min inaad tahay inaadan ahayn ma kala fahmi kartaa maanta waxaan soo qaadan doonaa siraad almustaqiim ayaan soo qaadan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaana jeclahay inay faa'iido fara badan oo ku sugan tahay sababtu maxay tahay 17 jeer ugu yaraan maalin kasta ayaan ilaahay waxaan weydiisanaa ihdinaa assiraada almustaqiim ilaahu waddada toosan nagu hanuuni dhegaysti haddii aad taqaano waddada toosan waxa ay tahay exactly waxa ay tahay aadna ilaahay weydiisato in ilaahay kuu sakhiro wax badan waxay ka fiican tahay adigoon aqoon u lahayn waxaa laga yaabaa inaad waddadii toosneed ba aadan aqoonba waxay tahaba xataa hadda ku taagan tahay taas marka waxay keenaysaa maxay ahaato ahwaalay iska noqonaysaa waxa macnaha ulmugdi kutuur inaan saxanahay in kale ma kala aqaano macnaha ummadda islaamkuna saasiiba u badan tahaba runtii waxaana keenay dadka wax baraya ayaa runtii waxay baraan waxyaabo haafay baraan qofkii waxaa loo tilmaamayaa barwaaqo fara badan janno adduunyo waxaase loo tilmaamayaa laakiin wixii si exactly looguma sheegayo 100% meelahaas cilado fara badanaa ka jira waxyaabahaas ayaana runtii anugu isku dayaa intii karaankeeya inaan bidhaamiyoon idhaahdo war meeshaasi wax ku jiraan khatartu halkaasay joogtaa wanaaggu halkaasuu joogaa qaabkaasaa lagu gaari karaa qaabkaasaa kaa celi karaa waxbaa noocaasa tusaale haddii lagu dhigo meel fog lagaa tuso ee lagu yidhaahdo lacag dahab barwaaqo fara badan wax naftaadu jeceshoo idil ayaa halkaas yaalla doono ka gaar laakiin khatar fara badan oo ay ka sokayso abwaankii soomaaliyeed muxuu yidhi waddada loo maraa wadiyaallahay war dheer dal wanaagsaneeda waddadii haddii wadiyaallo sid ku gaaraysaa wax barwaaqada halkaas joogta waa in lagu sheegaa oo lagu yidhaha khataraa ka sokaysa noocaas sidaas u shaqaysaa information buuxa lagu siiyaa 100% markaasaad gaari kartaa barwaaqada laakiin haddii wax yar lagu taabto wax fiican kor lagaa tuso waxa laguma sheegin runtii inaan lagu sheeginaaba ka rooma sababto khataraad gelaysaaba meesha dhexaad ku dhiban kartaaba marka walaalka sharafta lahow qof kasta ood ku kalsoon tahay maanta waxaad weydiisaa 17 jeer ugu yaraan qofka ugu yar macnaha ee muslimka mu'minka ilaahay wuxuu weydiistaa ihdina siraada almustaqiim suura faatixa markaan akrinayno maalin walba ii sheeg siraad almustaqiim waxa ay tahay ibar si nafteedu u qanacdo 100% oon u ogaado oon u barto waxaan samaynaa inay wax sax yihiin in kaleeto la soco weydii intaada sii wadin haddii ilaahay yidhaahdo haddii lagu sheego waa wax wanaagsan haddii laakiin ama ay timaado iyo ma aqaano iyo wax tiro badan oo kaleeto fara badan wax badanaa qaldan wax tiro badan ayaa qaldan weliba la soco biidnillahi alkariim maanta kuu dhaamina insha allah waa 10 shay weeyaan siraad almustaqiim macnaha meesha ugu yar ixsaan waa la samayn karaa waa laga badi karaahoo kumanaan waa la gaarsiin karaa laakiin meesha ugu yaroo basicalka 10 shay ayaa laga rabaa 10 shay 10kaa shay markaad samayso haadaa huwa siraad almustaqiim aad ku taagan tahay exactly aan kuu tiriyo marka xageedse ka helaysaa waxaad ka helaysaa ood ka akhri kartaa suuradda 6aad ee qur'aanka suura ancaam aayadda 151 iyo 152 iyo 153 saddexdaas aayadood ayaa kuu sheegayaan exactly waxa ay tahay siraad almustaqiim waa suuradda 6aad ee qur'aanka aayadda 151 152 153 waxaan u malaynaa tilmaanta waa haysataan aan kuu sheego marka waxa weeyaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أيا بالله كأه إلهي شركة أصمين إلهي كلها عابد خأم وحغيبياده كامقا أي وحقو تركرا خأم لين عدان الله ينو وحكومة تركران كمان الدلي كران كمان النولي كران وحنا كومة تركران وأنا باهند بسيدي ده باهند cidnana turjumaan kaagama noqon karto walaa malag muqarrab aan kaaga noqon karin
walaa rasuul kariim han kaaga noqon karin walow cid kaaga noqon karta wakiil ilaahay ma jirto taas ugu horta marka maskaxdaada ay ku dhacdo waxaad ka fogaanaysaa marka shirkeed ka fogaanaysaa arrinta labaad waxa weeyaan waalidka inaad baari u noqoto weeyaan waalidka caasi ha ku noqonin waalidka kelmad xun ka ilaali wax qalbigiisu dhibsado ka ilaali waxaan adiga kugu fiicnayn ha kula kicin waalidka uf ha dhihin waa laba weeyaan saddex carruurtaada haddaad carruur leedahay ha dilin liajli gaajo ka baqitaankeed irsaaqadda ilaahay baa baxsha subxaana wa tacaala carruurtaada gaajo darteed ha u dilin inuu leeyahay allah subxaana wa tacaala waa saddex weeyaan qodobka afraad wuxuu noqonayaa faaxisho ha samaynin faaxisho waad garanaysaan waa gobol dhaaf weeyaan xaas gabar xaasa oo nin leh ayaa ninkan la gogol gashay ama nin ayaa naag kale oo naagtiisii yihiin oo xaaskiisii yihiin ayuu la gogol galay hadaa huwa alfaaxisha dadka familka ah oo caa'ilada ah oo kaleeto oo isu galmooda oo kaleeto faaxisha la yidhaha iyadana gabadha dacaarada la yidhaahdo oo kaleeto faaxisha la yidhaahdaa khaniisiinta faaxisha la yidhaahdaa marka allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala faaxishaha samaynina faaxishada ka fogaada ta qarsoon iyo ta muuqata labadaba afaraan haysanaa la soco naf bani aadana oo ilaahay karaameeyana ha dilin naf bani aadana ha dilin dhiig bani aadan ha isku gelin waa shan la soco qaybta labaad waxa weeyaan xoolaha agoonta xoolaheeda iska ilaali maal agoomeed afka ha isku saarin waxaad iska ilaalisaa miisaan ha qaldin beeg ha qaldin haddaad wax beegayso ood miisaamayso beeg iyo miisaan waa isku dhow yihiin waxaa kaloo soo geli kara meesha cabirka hadda waxaa la isticmaalaa cabiraa la isticmaalaa iyo miisaano digitaala wax noocaasa mar walba cadaalad inaad samaydo waayo exactly waxa saxda inaad samaydo waayo qaybta sagaalaad waxay noqonaysaa markaad hadlayso cadaalad ka hadal oo macnaha waxa aad sheegaysaa ay noqdeen wax daacadka oo runka ah waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa wabicahdi illaahi oofuu ballanta ilaahayna in la oofiyo ayaa tobanka ah waxaad haysataa shirki inaad ka fogaato waalidkood baari u noqoto awlaadaada ooda dilinin maxay too faaxisho ooda la imaanin naf bani aadana oo aada dilinin miisaanka iyo maalka agoontood iska ilaaliso miisaankood iska ilaaliso beegga ood iska ilaaliso macnaha aad saxabaan ka wadaa macnaha markaad hadlayso ood run sheegto oo wax runka ah keliya aad ku hadasho ood iska daydo munaafiqnimo iyo laba aad iska dhaafto maxay ahaato ballanta ilaahay dartiisa haddaad ballan u gashana inaad oofiso tusaale guurku waa ballan ilaahay weeyaan cahdi weeyaan mithaaq qaliid ha la yidhaahdaa guurkoo kaleeto inaad daacad ka noqoto weeyaan 100% shaqo haddii lagu diro ballanka inaad daacad ka noqoto weeyaan waad dhaaratay oo kitaabaad martay waa inaad daacad ka noqotaa oo wixii sidaad u dhaarataad u samaydaa exactly sidaad u samayda qofaa shaqo ku siiyey shaqaas waa inaad daacad ka noqotaa wabicahdiillaahi awfuu ballanta ilaahayna oofiya marka aad ballan gelayso ilaahay dartiisaad u gashay hadday marka hore shaygaasu mamnuuc yahay marka horeba maahanba inaad doonataba ood ballan la gashaba waa inaad tidhahdaa waxaan uma qabanayo waxaan ilaahay raalli kama ahan sababta muxuu leeyahay allah walaa tudiicu amra almufsidiin ilaahay leeyahy ha adeecinina waxyaabaha mufsidiinta amarkooda masala waxa lagu dad soo dilaa lagu yiri ma iska adeecaysaa hayimaad leedahay maya taas inaad ballan ku gasho maahan waxa lagu yiri wax soo xad ma yeelaysaa maya waa inaad diiddaa tira maya anugu shaqadan ma qaban karo anugu waaga ilaahay baa meel kale gaar saaqaya waxyaabahaasoo idil marka horena iska ilaalisa weeyaan idan marka aad wax saxa aad ballan iyo dhiil ku gasho waa inaad si saxa u samaysaa tobankaa shay markaad samayso allah muxuuna leeyahay wa anna haadaa siraadii mustaqiiman kaas waa waddadaydii saxda ahayd oo toosnooday weeyahay allah subxaana watacaala waxaan jeclahay inaad wax badan ka faa'iideen walaalkaaga kaleeto gaarsii walaalka sharafta lahow ilaahay ha nagu wada anfaco haddii aan saxay ilaahay baa ii fududayo subxaana watacaala haddii aan wax khaldayna rabbigay cafishada midhaafaan weydiisanayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu